madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si degdeg ah ugu soo laabtay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guddi u xil saaray sababtii keentay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne kaas ay ku dhinteen dad uu ka mid ahaa taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan. wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sheegay in dad shacab ah ay ka soo jeedo koonfur galbeed lagu dilay duleedka magaaladaasi. General Thomas Welluser oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka AFRICOM iyo safiirka Mareykanka Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa la sheegay in ay talaadii magaalada Muqdisho kula kulmeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo kala hadlay sidii Mareykanka ay diyaar ugu tahay in ay Soomaaliya ka taageeraan soo celinta amniga iyo xasiloonida. halkaad nagala socotaan waan qaran joog news qodobadaasi qodobo kale u diyaar garooba subscribe saar kanaalkeen haddii aad doonayso in wararkeena la socoto mar kale kulanti wacan daawadayaal meel walba aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada wararkii oo faahfaahsan. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si degdeg ah dib ugu soo laabtay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Maxamed Cabdi Waare ayaa waxaa garoonka kusoo dhaweeyay wasiiro xildhibaano iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Ali Maxamed Araale. dib u soo laabashada madaxweyne Waare ee magaalada Beledweyne oo dhowr maalmood ka hor safray dalka Kenya uguna ama baxay ayaa waxa ay ku soo beegmatay xilli magaaladaasi Beledweyne ka socdaan banaanbaxyo lagu soo horjeedo maamulka Hirshabelle. dadka banaanbaxyo taageersan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa ku gubay wadada laamiga taayaro. shalay dagaal khasaare ah geystay ee dowladka magaalada Beledweyne ku dhaxmaray ciidanka kala taabacsan Yuusuf Dabageed iyo ciidanka ammaanka Hirshabelle ayaa xiisadan ka taagan tahay magaalada Beledweyne ayaa salka ku haysa ka qaadista xilka lagu sameeyay gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo diiday in xilka qaadistaasi waxaana ciidamada taabacsan ay wadaan gudaha iyo daafaha magaalada Beledweyne dhaqdhaqaaqa ciidan. kusumaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda goboleedka Hirshabelle Ali Guudlaabe ayaa ka tacsiyay geeridii taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan General Dhexe Maxamed Macow kaasoo lagu dilay iskoorimaadkii ka dhacay Kalabeed. Ali Guudlaabe ayaa ku amray in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigaan qofkii ka dambeeyay dilka taliyaha ee sharciga la soo taago. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guddi u soo saaray sababtii keentay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne kaasoo ay ku dhinteen dad uu ka mid ahaa taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan. guddigani ayaa gudoomiye waxa looga dhigay taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Koobe waxaana qayb ka ah xeerlaalinta maxkamadda ciidamada oo iyadoo guddigaasi ay baaris ku sameyn doonaan waxa sababay dagaalka. guddigani ayaa baaritaan ku sameyn doona sababtii ka dambeysay iskoorimaadkani shalay ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne gaar ahaan deegaanka Kalabeed. guddigani ayaa la filayaa inay kormeer ku tagaan magaaladaasi Beledweyne isla markaana ay baaritaan xaqiiqo ah raadin ay ku sameeyaan dhacdadii uu ku geeriyooday taliyaha booliiska gobolka Hiiraan. taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha guddigaasi oo warbaahinta la hadlayay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in guddigan uu madax banaan yahay xeerlaalinta maxkamadda ciidamada ayaa si dhab ah baaritaan ugu sameyn doono si loo xaqiijiyo waxyaabihii keenay dagaalka uu ku dhintay taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan. ciisadahani ka taagan magaalada Beledweyne ayaa salka ku haysa xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed waxaana ciidamada taabacsan ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan gudaha duleedkaasi magaalada Beledweyne. sidoo kale guddiga ayaa waxa oo kaloo xil saaray inay baaris ku sameeyaan israsaaseyntii dhawaanba intii lagu guda jiray bishii Ramadaan degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ku dhaxmartay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. General Thomas oo ahaa taliyaha ciidamada Mareykanka AFRICOM iyo safiirka Mareykanka Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa la sheegay in ay talaadii magaalada Muqdisho kula kulmeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ay kala hadleen sida Mareykanka uu diyaar ugu yahay in Soomaaliya uu ka taageero soo celinta amniga xasiloonida. wadahadalada labada dhinac ayaa ka wada hadleen iyadoo ka qayb ahayeen madax badan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaana la sheegay in lagu soo qaaday la dagaalanka al-shabaab. caawinta Mareykanka ayuu General Thomas waa muhiim oo ah in aan la shaqeyno dadka iyo dowladda Soomaaliya si loo helo nabad iyo xasilooni. nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waxay macnaheedu tahay in gobolka oo dhan xasilooni uu noqdo waxaana ay macnaheedu tahay in dadka Soomaaliyeed ay awoodaan
inay xoogga saaraan dib u dhiska iyo horumarka ayuu yiri hadalkiisa intaa uu raaciyay. Mareykanka ayaa xarun ku leh Shabeellada Hoose waxaana si joogto ah u duqeeya Al-Shabaab. Waxaa kaloo ay tababar siiyaan ciidamada danab oo ka tirsan ciidamada qalabka sida. Wararka naga soo gaarayo magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug ayaa sheegaya in dad shacab ah ka soo jeedo Koonfur Galbeed lagu dilay duleedka magaaladaasi. Ku dhawaad 5 ruux ayaa lagu dilay deegaanka Bucalle dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Dhuusamareeb sida dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen. Wariyaasha ku sugan gobolka Galguduud ayaa sheegaya in dadka la dilay ee deegaan ahaanba ka soo jeedaan Koonfur Galbeed inay ku dhinteen falal la xiriiro aanooyin qabiil maalmihii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud. Meedadka dadkan shacabka ah ay ka soo jeedo deegaanada Koonfur Galbeed ayaa loo qaaday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud. Wararka qaar soo baxayo ayaa sheegaya in dadka rayidka ah ee la dilay aysan ka mid ahayn labada beelood ee maalmahan ugu dambeeyay ku dagaalamayo deegaanada Bucalle. Xiisad u dhaxaysa labada beelood oo halkaasi wada daga ayaa ka taagneed maalmahan ugu dambeeyay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud, waxaana dadkaasi la sheegay inay saameysay xiisada dagaal ee halkaa ka taagan. Ma jirto wax war ka soo baxay maamulka Galmudug ku aadan xiisada ka taagan duleedkaasi magaalada Dhuusamareeb ee ka dhaxaysa beelaha halkaasi wada daga. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalintii ka hor dadka ka soo jeedo deegaanada Koonfur Galbeed loogu yeeray xarunta Dhuusamareeb isla markaana laga dalbaday inay laamaha ammaanka ah la shaqeeyaan xaqiijinta ammaanka Galmudug. waxaan intaan noogu idlaaday wararkii aad kala socoteen Qaranjoog News warwarka lamida intaan ku wada kulmi doono. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.